geeridu ma lahan waqti aad og tahay oo lagugu soo wargelinayo, balse waa lama filaan ay aadanuhu la kulmaan. Laakiinse diiwaanka geerida iyo xilliga lagu oofsanayo waa wax uu Alla weyne awooddeeda uu leeyahay. Adigoo ku howlan howlahaaga adduun kuna mashquulsan horumar ayay ajashaadu kugu imaan kartaa. Qof walba oo dunidan koonkeeda jooga waxa uu og yahay in waqti uu geeriyoonayo, balse ma jiro qof og waqtiga geeridiisu ay ku beegan tahay. Dadkan aad u jeedid waxay saaran yihiin diyaarad, waxaa fadhiga ka kiciya qof waliba, wax kale maahan waxaa nafta ay kasii baxaysaa oo ajasheeda halkan ku qorneed, isla markaana ku geeriyootay gabar Soomaaliyeed oo ka mid ahayd rakaabkii saarnaa diyaaradda. Waxaa mar qura isbedelay jawiga diyaaradda, qof walibana waxa uu ka soo booday kursigii uu fadhiyey. Qof ka mid ahaa dadkii saarnaa diyaaradda oo muuqaal kooban soo duubay ayaa waxa uu yidhi, waa ay geeriyootay gabar Soomaaliyeed oo walaasheenna ahayd, isla markaana diyaaradda nala saarneed. Waa geeri naxdinteeda leh, isla markaana arrintan waxaa aad kaga naxay dadkii wada saarnaa diyaaradda. Mar qura jawigii diyaaradda ayaana isbedelay. Allah u naxariisto ayaanu leenahay walaasheen, fadlan u duceey marxuumadan geeriyootay. Waxaan ku jirnaa maalmihii dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaa suuragal ah in ducadaada Rabbi uu u aqbalo. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso, talow maxaa ku dhacay, xanuunka ku soo booday muxuu yahay? Laakiinse waxaad ogaataa in adigoo caafimaad qaba nafta si fudud Rabbi uu kaaga qaadi karo. Waxaa suuragal ah isla markaana wax badan aad maqashay, hebel waa uu geeriyooday isagoo caafimaad qaba, xalay waxa uu ku seexday caafimaad, saakana sariirta waxaa loogu tegay isagoo meeda. Qof hebel wadnaha ayaa istaagay, ruux hebel isagoon waxba aan qabin ayuu istaaga ka dhacay, waa uu geeriyooday. Waa suuragal in dhimashooyinka degdega oo lama filaanka kugu ah in dhagahagu ay ku bateen, laakiinse geeridu waa mid mar waliba innagana wada sugaysa.